waxyaabaan ku gabagabeeyo waxyaabaha aad ku fiican sanadkii inuu gabagabeeyo waxa kamid ah in si adag loo dhameystiro marka ayaan si adag u dhameystirto qofku wuxuu la galaa xamaasad fiican buu la galaa sanadka cusub oo sidii diile iyo maartay rajo fiican buu la galaa because qofku soo qabtay energy buu la galaa hadduu qofku ku dhameeyo sanadka qoomaba iyo maartay sanad baa ka tagay iyo waxa maadan hirgelin iyo xukuuma qabsoomina inta badan waxa yahay saameyn buu ku yeelataa January marka uu galay marka sanad walba waxaan sameeyaa waxbaan ku dhameystiraa xoogan si sanadka cusub aan weerar ugu qaado أنا ده warm up مكتوب بدي مركز عياري سواش ولا سيوم ممكن ولا سيكولة سيكولة وسنة كل وريقة ومر وليبا ما له حاجة رقفك ونلوش يسكت فكره وحكم ده مركو قالوا عمري سن معين يعني صدق سنة مركو قالوا 20 سنة مركو قالوا 40 مركو قالوا كنت مركو قالوا وما لها temporal وحيد هذا لوب وحيد هذا وما لها وحسك بدلان temporal landmark بالي هذا نرش وما له حسك بدلان ديسمبر سنة بقى جبا سنة بقى بلامبية قفكم مركو وقتين وكلا قالوا لي لا سنة عصب بقى بلامبية يو نلش كذا البو فكرية عليه نيو الله يطول بلاد بقول أفتي سنة كودك دقيقة معك وقف صامي دمانت أنا موتيفيشن بعريري نسوع تيك توك ما أنت ذاك الشيء بقول موتيفيشن بدر كيسا بقول قف كحدن تاني يو كعرني بدر كيسا نلش هذه بديجي سادة أنا قف عليه والله واحد قبته مال مريخ أركو حد إكرس وليبا وحيابا خسرت لم تقنا ما هذا وحيابا خسرت له حكم ده حتى قف قدر وحقبتي جنوري فبراير مارس أبريل ماي جون حتى واحد في عام وساقبتي labada bilood ugu dambeysay aan wax qaban waxa dust ku noqonay oo tirtiraya sawaxankan iyo distractionka iyo nolosha waxan ordaya mid kale mushkilada maanta jirto waxa kamid ah waxyaabo badan oo inoo qabsoomay jira by the way nimcooyin far badan baan haysanaa qof wal oo maanta nool maanta hada adigu 10 sano kor riyooyinkaad lahayd riyooyinka 10 sano kor lahayd maanta imsaad ka gaadhay islaada waxa far badan sama laakiin hareerayna waxa ka socda 110 qof oo kala waxay soo dhigayaan soo share garanayaan maalin walba waxay qabanayaan iyo meesha u socdaan iyo wax noloshooda ku soo kordhay taas ku yikicinaysa ma eegaysan nimcooyinkan iyo waxaan faraha badan ku soo qabsan marka waxaan ka wadaa qofka xilligan markuu taagan yahay yes dad badani wax badan oo qabsan ma dhici karas laakiin in badan oo kamid dadku waxba u qabsamay waxbay qabteen noloshooda isbedel bay ku sameeyeen laakiin isbedelkaas waxa ka qaranaya distractionka faraha badan ee hareerayna ka socda oo ilaa far badan uu keenay iyo إنه لو شني بقى المدة عاوزك وقت اللي يدعى موقته عاوزك هضبة بنك كلوا كعجر لكن مركز تحتك تو حضرك يسا جدد يقضي يوحي كوارسنا إنه لو شني ساسوي مات قف ولا مركز مانت وحياة بدن اللي مفر بدن سيدي وحلي هذا مانت قف كنول وحقول له يا سيدي بقرصنا كور بقرض يقولون لا يعني الكونديشن بانيسنا هيتر بانيسنا ولا بيسنا هاي تلفونك ودن بيبانيسنا هاي مانت شات جي بي تي بالكنا يسطا و everything أدو يدين كريسا مركز يس وحبلنا قبلنا بأشير لكن xilligan I think saameyn bay ku yeelanaysaa qofka hadduu sanadkiisa maanta waa December waa 30 haddii saameyn bay ku yeelanaysaa haddii uu si negative ah uu noloshiisa dambe u eego waa inaad waxyaabo quruxda badnaa soo qaadato isku diyaariso sanadka cusub kana faa'iideysato laakiin aad tiraahdo qoomamo iyo halkan ku jirto effect bay ku yeelanaysaa ku soo raacaysa daraasad ku sheegayaan sanadka cusub xitaa markaad hadaf dhiganaysid iyo dhaqaaqaaga ka qaadashada bini'aadamku waa noolaha kaliya ee khayaali karaya mala awaali karaya maalintan uu ku jiro maalin dhaanta suuraysan karaya xayawaan kale male isbedelku ma riyoon karaya maanta geela ama lo'da ama libaax isbedelku ma riyoon karaya adiga laakiin adigoo xaalad ku jira jingad ku nool ama xero qaxooti ku nool ayaad waxaad sawiran karaysaa adigoo halkaa fadhiya nolol dhaanta noloshan maalin dhaanta maalintan ayaad sawiran karaysaa halkaas ku bilaabmaya marka riya ka bilaabmaysaa deetana riyadii way ballaaran tahay hadaf buu noqonaya marka aduu taajira maalan ayaad suuraysatay you wanna become taajir ama adigoo caalima laakiin maxaad leedahay waxaan rabaa sanadkan inaan dhameeyo sanadka ugu horeeya dee maalan 20 kutub oo kamid ah ummahaadka xadiidka ayaan rabaa inaan dhameeyo ama inaad tiraa sanadkan waxaan rabaa 3 kun safe gareeyo oo lacaga halkaasaad ka bilaabaysaa hayaankii aad ku noqonayd qof hantiilaade ganacsi bartaan aad abuurto maanta sanadkan 3 kun baan rabaa inaan safe gareeyo hadafku marka halkaas imanaya marka waxaa jira riyadu ma hirgasho haddaanay hadaf noqon hadafkana waxaa jira keligii macno badan ma sameeyo qorsheyn buu u baahan yahay systems in loo sameeyo u baahan yahay halka marka lagu kala harayo halka inaad ahdaafta qorato waa very important wana ka sheekeen doonaa inaad ahdaafta qorato waa very important laakiin ahdaafta halka waa inaad ku ekeena waa inaad si dhaadhicisade ahdaaftu waxay u baahan yihiin inay specific yihiin la xadidan yahay inuu clear yahay reasonka aad u rabto inay xoogan tahay oo bini'aadamku si samaad inagu waxaan xasuusano iyo waxaan u dhaqaaqi karaan iyo waxaan doonaynaba the more emotion ula xiriiro waxa nolosha aad doonaysid maado nolosha waxa aad doonaysid mar kasto emotion xoogan
ولا حديدو ومركزتو حقيقين تدي كدوانيس rabitaankaaga iyo doonistaadu intay la eg tahay iyo ku xidhan tahay waxaad doonaysa inaad gaadho January 80% January by time January ay dhamaato waa 3 cisho kaliya 80% dadku way ka dhacaan ahdaftooda doonto sanadka ay dhigan lahaayeen January bay dhigteen koodeeda ama December aakhirkeeda dhigteen maanta kala dhigteen 30 guri waa 31 way dhigteen January markay 31 marayso 80% dadku way ka dhacaan ahdaftii okay maxay keenayay mid kamid ah watan hadda ka sheekeynay waxa rabitaan gudaha ka yimi maahayn ayagu ma walahayn hadaf aysan lahayn hadaf lahayn bay wataan ku reeyeen ay qorteen doonayeen inay gaaraan mar qofku waa fariisiira ana maxaan horta rabaa what do I want noloshiisa intuu eego ila noloshiisa isbedel u baahan tahay qofku yartiyo dhigtaa bay muhiimada qoraalka uu qorayo itself actually inuu qalin iyo warqad intuu qaato hadaftiisa uu qorto wali waxaan kula tahay qof walba intuu hadaf qoro oo muhiim doona hadhow qof walba inuu hadaf qorto qorad ustaad qoridaada qorayso fiiri markaad maskaxdaada yool iyo aad ku haysato riyo aad doonayso inaad gaadho iyo marka aad qalin iyo warqad intaad qaadato qorayso laba arrimood laba caalam oo kala duwan waa maskaxdaada boqol afkaar ku jira maskaxdiina inay wax qasnadayso loogu mitlagelin afkaarna hal abuurta loogu talagalay qalin iyo warqad waa inuu qoro marka aad wax qorayso waxay kaga duwan tahay markaad 10 hadaf baad dhigatay oo doonaysa sanadkeena gaadho mesela 10 hadaf maskaxdaada isaga jira boqol afkaar baa imanaya 60,000 ilaa 80,000 oo afkaar fikradood buu qof ku fikira maalinkii 60,000 oo fikradood ayuu qofka bini'aadam ku fikira marka fikradahaasi ayay iska dhex jiraade laakiin markaad qalin qaadato iyo warqad clarity wax yiraahdo ku siinaysa clarity wuduux waxa la qofku marka uu wax qorayo iyo marka uu fakarayo farqo ma dhaxayso markaad fakarayso kasoo qaad yani hal hadaf aad doonaysid maanta rogrogaysa waa dhiranaysa waad ka fikiraysaa waa rogrogaysa iyo markaad qoraysid waa isku mid because qoraalku wuxuu kugu khasbayaa inaad more specific noqotid laba qoraalku wuxuu kaa saacidayaa inaad track yeelato iyo wax ku xasuusiya fiir haddaad maanta tiraado January haddaad fadhiiso tiraado niyo hadaf baan rabaa inaan gaadhaan rabaa oo aad hadaf aad maskaxdaada iska geliso dee afkaarta farax badan noloshaadu wareegaya unbay iska dhex jirayaan laakiin markaad qalin warqad qaadato December waxaan ogahay December markaan soo gaaro waxaan ogahay meesha wax ku qortay dee marka clarity bay ku siinaysaa waxay ku siinaysaa wax aad track garayn karayso daba raaci karayso waxay ku siinaysaa inaad xasuusan karayso waxyaabo badan focus bay ku siinaysaa wixii way qoran waad aragtaa waxaad qoratay weeyaan marka faa'iido weyn bay leedahay in hadafta la qoro actually daraasad badan baa laga sameeyay dadka hadafta qortay dadkan qoran farqi weyn baa kala dhaxay waxaan aaminsanahay inuu qofku qoro 3 nooc oo hadaf 3 nooc oo hadaf inaad qorato hadaf dhow hadaf dhexe iyo hadaf dhaadheer kulli waa dhaadheer mujida hadaf dhow waa maxay waa January koodeeda ilaa December aakhirkeeda sanadkan 2026 waa hadaf dhow 6 bilood ilaa sanad hadafta dhexe waa maxay sanad bay ka bilaabmaysaa ilaa 3 sano ilaa 4 sano 5 sano gaarsiin kartaa hadafta dheer waa maxay 5 sano ka bilaabmaysaa ilaa 20 sano ilaa 30 sano aad bay muhiim u tahay by the way dad badan baa jira by the way hadafta waxan waa wax sarsaaran waa la kabiyo kan aad qaadaysa laftigiisu wuxuu ku xiran yahay meeshan maxaan ka warramay mar dhow waxaan ka warramay emotionkaaga iyo saad ula falgasho dareen ahaan hadafkan waxay ku xiran tahay inta aad gaari karaysid laakiin kan sanad kaliya macna badan ma sameeyay waxay u baahan tahay inaad ku xidho mustaqbalkan lifestyle waxaan mar dhow bini'aadamku waa cid kaliya suuraysan karaysa nolol weyn suuraysan karaysa مثلا Sheikh Idris markuu ka warramay wuxuu yiri 30 sano ka hor ayaa soo Sacuudiga jooga ma ka jooga ayuu wuxuu dhigtay laba hadaf waaweyn inuu noqdo qoraa iyo inuu noqdo daaci رزعتها صدق سنة كور هي داعي ما أنت لبض وحنكون نقانا واحد شيخ حيدريس وضدك وقرأ الكبضن وبوك تبضن وهدد أنت نقرانيو وأنا داعي أين قرانينو صباح شيخ waxa ay sheegtay qof inuu yool lugtay inuu u baahan 5 arrimood oo min Q capital 5 arrimood marka waxay takooda xooy waa qoraal labo qaafka labada xooy inuu qofku qiimeeyo you need to evaluate maxaad qiimeynaysaa kow hadafkan adoonaysa specific maya وحدد مية وربط ما حركة ساقوك ويقول لي وحرب أنا ويت كيسكريدو حرب أنا قرآن نقطة حرب أنا وحبرته وحقي حنما بقي حنا يعني مقي حنا مثلا وحرب أنا صورة الكاف حفديو مقي حنا سيو حفدي نيسا حدك حفدي نيسا أنت بقول سؤال بقى كتير مثلا مكا قفكم سبحاي سبيسيفيك نقرأ وقي حالك سوق لي وعن ربا إنا صورة الكاف حفديو ويقول كذا مثلا أوكي wuxuu gool noqonayaa wataadimiinu tilmaamay Rio wuxuu baantay in gool laga dhigo goolkuna si uu xaqiiqoobo waa in process la mariyo processka waxa kamid ah inuu specific yahay مثلا عتري waxaan rabaa inaan xifdiyo مثلا
سورة الكهف أوكي waxaan rabaa suurat al-kahf waa 10 suuro aayadood weeyaan 110 ka aayadood waxaad leedahay 30 ka maalmood ee soo socda January 1 ilaa iyo 30keeda waxaan rabaa inaan suurat al-kahf xifdiyo maalin walba waxaan xifdinayaa 4 aayadood specific xadidiin waqti baa ku xadidan labo arrin kale tusaale kale waxaan rabaa sanadkan inaan aqriyo dhalinyarada waxay ku leeyihiin qora inaan aqriyo rabaa sanadkan waxaan rabaa 12 book inaan aqriyo maad waxaan rabtaa January baa dhiganaysaa 12 book inaan aqriyo waxaan rabaa inaan aqriyo ma riyo waa taas سورة كهف ربنا حفظيه ريوة وحن ربنا إنه حقريا ربا مع هدف نقنية إن التراديد صرتكم حرب الله بيتون بوكنا نقريه بنول بوحنا آخرنا يا بوك ويقول بنا وحنا آخرنا يا أنت سبوك ما نقول بأنت سبوك بنكسي آخرنا صار كله إن وحن ربنا صدق كنا دور أسيف جريان ربا 2026 طبعا بربنا يحكوا بالأوان مركبوا يرتينوا كتاريوه مدير قلنا لكن اوكي لسه لبيتون قبل حتى سنه كان نقض بحكولين سيف كان كحما انا واحد سيف غري ربنا اوكي صدق كنا ضرب انا سيف غريس لبيتون بلود ويان بالول لو بقول كنا دولار من كارتا من دكت صدق كنا ضرب سنه كوتال يعني waxaan ku wada karana yani intaas مثلا waxa rabaa 10 kiilo rabaa inaan sagoyo sanadkan December inaan gaaro saddex bilood socota مثلا saddex bilood socota waxa u baahan tahay 10 kiilo saga jirto saddex bilood socota ma wiig walba waa inaad iska jarto 0.8 kg 0.8 kg waa maxay waa 115 gram maalintii wax yaraan cunadee ha marka 10 kg is very possible laakiin dadku mushkiladda haysato waa maxay ma qeexna clear maaha waa vague wax vague na biniyaadku ma dhaqaajin karayo ma gaari karayso waa qof qiime marka waa inaad qeexad waa inuu leeyahay hal mar dulmar qoraal qiime qoraal inuu qofku qoro inuu qiimeeyo saddex inaad qorshayso afar inaad qaraar gaadho shan inaad qaado talaabooda qoyska ogaato okay qorshaysi maxaa ka wada okay qiimeyntan aan ku dhameystiro qiimeyntu kow waa in horta aad clear uu yahay specific yahay labo waa inaad outcome-ka aad suuraysan karayso outcome-ku very important one you have to be able inaad ku celcelin karayso wixii adigoo gaadhay inaad ku celcelin karayso ood suuraysan karayso adoo hadafkii gaadhay saddex obstacles kaad ka fikir karayso wiikan ku caqabad baa ka hor imanaya it wasn't easy inaad maartay aad wax qorto ama aad ganacsi abuurto inaad maartay media company weyn aad asaasto it wasn't easy marka obstacles baa ka hor imanaya waxay yiraahdaan qofka iska optimistiga rajada isaga noo yiraahdo wallahi waxaan waa gaarayaa kaliya yiraahdo iyo qofka yiraahdo ma garanaysaa caqabadaas ay hor iman karayso intuu ka fikiro yiraahdo inuu hadafkaas aad u gaadho caqabadaas ay hor imanayso caqabada seen uga hortagaa if the method waxa yiraahdaa jiro qorsheynta lagu dhex sameeyo iyo marka inuu yiraahdo caqabad ka hor iman waa horta warsan karayso saddex dad skills waxaad u baahan tahay maxaa wax ka saacidaya مثلا markan weydka iska riday cid baa qayb ka ahay sida Cabdiraxmaan ay accountability sameeyay eeg mujita marka hadaf aad doonaysid inaad gaadho wax fara badan bay u baahan tahay marka qiimeyntaas waxa soo galay kow clear inuu yahay specific ma yahay outcome-ka maxaad u doonaysaa way baad u doonaysaa sidoo eegaya outcome-ka doonaysid obstacles-kii maartay caqabad ka hor imanaya sidee yihiin dad miyaad u baahan tahay xirfad miyaad u baahan tahay habit miyaad u baahan tahay waxaas inay isweydiisid waa qiimeynta waxbaan qiimeynaynaa moogti waxbaan qiimeynaynaa qorsheynta waxa weeye from halkan ilaa halkan laga gaarayo inta u dhaxaysa si loo qorsheyn lahaa inaad xilli bilow iyo xilli dhammaad inaad u samayso noloshu ma jirto wax la gaaro iyadoo iska daba furan tahay qodobka ku celinaya noloshu ma jirto wax la gaaro iyadoo iska daba furan waxay u baahan tahay in bilow goortaad bilaabayso loo sameeyo waa mid ka mid a sababaha dad badan ka mid ah ahdaaftood xaqiijinayeen way iska daba furan tahay ma jiro xilli bilaabayo ma jiro xilli dhammaanayso waa xilli bilaabayo xilli dhammaadana jirin ma jiro wax ku pressure garanaya waa iska rabtaa someday I'll maalmaha kamid procrastination baa imanaya distraction baa imanaya jeediyaal dhabqiyaal noloshii hawleedii waa garanaysaa marka waa inuu xilli bilow iyo xilli dhammaad u leeyahay akhiiran waxaa muhiima marka labada qodob ugu dambeeya waa maxay inaad qaraar gaadho maadoo qaraarku waa meesha ugu adag qaraarku sheekul islaam ibn qayyim wuxuu oran jiray laba jeer buu qofku u baahan yahay caziimo iyo go'aan inuu la yimaado mar waxaa waaye marka uu bilaabayo marna waa baasho markay adkaato meesha dhexe markay gaadho ay adkaato qofku wuxuu u baahan yahay qaraar mar labaad dhexdeeda mar labaad xidho marka koowaad waa qaraarku waxay yidhahdaa commitment waxa la yidhahdaa it's not 99% ma waa 100% ka go'naansho waxaa la yidhahdaa ninbaa dhalinyaraa wuxuu yimi nin hantiila ah marka hantiilahaas meesha waxdoodna gelin karaynaa wuxuu ku yidhi nin waxaan rabaa inaan
hantiila noqdo sidoo kale matalan wuxuu tegey axmed jimcaal oo kale ama dahabshiil oo kale u tegey hantiilayaasheena hantiila noqdaa rabaa kaasuu yidhi hantiila miyaartaa noqotaa maalin hebla isugu kaaya keen lekaawun oo kale matalan beesha heblaaya meel biyo leh ayuu ku balamiyey deetana maalinkii baa la gaaray wuu yimi wii ka yaraa odaygii meesha ku sugaya wuu tegey way salaameen waxaad rabtay muxuu ahaa iigu celi wuxuu yidhi inaan hantiila noqdaan rabaa sidaadoo kale garabkuu qabtay xaggii baduu la dhaqaaqay biyihii buu lugaha la galay ka yar waa yaabaya xuleyniyow anuu hantiilan dooniye ma badday hantidu jirtaa yaabaya sii waday biyihii canqoyaday u gaadheen halkaa lafdheertay u gaadhay jilbahay u gaadheen miskay u soo gaadheen xudumahay u gaadheen aduu halkaa markay qaraankarta markay marayso ayuu madaxa u gelinayaa biyaha ka yaraayo biyaha madaxa loo gelinaya ka xogeyn moogta madaxa u gelinaya ka yaraa ka soo saaray haddana waa ku celinaya haddana waa ka soo saaraya haddana waa ku celinaya haddana waa ka soo saaraya ka yaraa markuu nafta u yaabo ayuu odag saa u leeyahay biyaha markii aad madaxa kula jirtay wixii ugu baahida badneed maxay ahayd kaasuu ka yaraa wuxuu leeyahay hawo neef inaa neefsadaa rab inaa hawo qaataa rab markaasuu yidhi marka waxaad hantiilo noqonaysaa marka aad hantiilanimadu ama lacagta aad ugu baahato sidii aad waxa keliyaad ugu baahnayd ay ahayd hawada markii aad biyaha madaxa kula jirtay ugu dambeynna tallaabada ugu dambaysa waa maxay aynu tilmaamayna maanta waa qaad tallaabo qofka siisa markuu tallaabo qaado in badanoo ka mid a wadka fikraduhu maado waa ficil la'aan wadka fikraduhu waa ficil la'aan waxaa la yidhahdaa meesha ugu qanisan adduunyada mataqaanaa waa qabriyada waxaa ku jira intaasoo riyo oo trillions of dollars laga samayn lahaa dad cabaaqiro noqon lahaa ibnu qayim iyo ibnu taymiye iyo sheikhulimaarata noqon lahaa culamadii waaweynaa dad injineero noqon lahaa oo einstein iyo maaragtay ragga waaweynaa noqon lahaa iyo elon musk ayaa qabriyada ku jira laakiin waa maxay dee tallaabo baysan qaadin riyadu way qabeen tallaabona may qaadin ugu dambeynna qodobka waxaa ku lamaan tallaabo markaad qaado oad wax dhaqaajiso maado waxaa ka hor imanaya caqabaad fara badan hadda aan tilmaamayni waxyaaba badan ku talagelin baa ka hor imanaya quus inaad iska ogaato oo aad magaranaysaa aanad ka soo laaban si hadda aan tilmaamaynay goolka inaad dhalisay inaad dhimato mooyaane inaad meel dhexe kaga hadha waa dhabcaalnimo inaadan quus aad iska ogaato nolosha wax kastoo qiimo badan soo qabo aan soo tirin imaado wax kastoo nolosha qiimo badan fiiri dahab ma noqdo pura ilaa dab la mariyo diamondkaad aragtay waxaa la yidhahdaa waxaa keena diamondka dhagdhaxyada kale ka duwa pressureka meesha laga soo saaro waa meel aad u cufan oo lakabyada kala duwan ee kala sarreeya dhulka ayaa pressure badan ayay ku dhashaa miskiga baalka la yidhahdo oo la yidhahdo waxyaabaha ugu carafta badan adduunka ka mid ah ilaa iyo taariikhdeed inta la garanayo miskiga muxuu ku dhashaa mataqaana deerka baalka la yidhahdo deerada lab dhadiga maaha dhadiga waxa la yidhahdaa deero labka waxa la yidhahdaa deerkaasi qanjirkiisa xanuun ku dhaca ayaa caabuq marka uu sameeyo oo uu xanuun yeesho oo uu xaysmo ayaa miskigu ka samaysmaa marka hore wuu uraya marka dambe inta lasoo saaro bannaanka la dhigo la qorraxeeyo ayuu miski noqdaa meesha fog buu ka yimaadaa bahalkana yidhahdaa ma garata oysterka luulka waxa la yidhahdo luulka waxuu ka yimaadaa perils waxa la yidhahdo luulka waa oysterka bahalkan yare loxod baa la yidhahdaa soomaaliga waa sheelska yare maaragtay waa la cunaa waa qaali aad baa loo cunaa loxodka yar maaragtay ayaa waxa la yidhahdaa isku leeyahay waa bahal yaroo laba qolof sidii diidiinka oo kale qolof adag buu leeyahay waa bahal la cuno maarata maqaaxiyo waaweyn oo dhan laga helo bahalka waxa la yidhahdaa ciid ka mid a camuudda xeebta ayaa gasha deetana irritation buu bilaabaa deetana xanuun buu noqdaa deetana caabuq baa samaysa resistinka jidhka uu iska celinayo ayuu ukumo yar soo daayaa ukumahaas ayaa waxay noqdaan luulkan aragnay dhan walba soo qabo dee geedku waad aragtay markuu soo baxayo waa inuu xididadana dhulka xoog ku galo bannaankana u soo baxo qofka biniaadamka ugu wanaagsan dhashaya waa biniaadam soo ma waxa u dhasha adduunka ugu qiimaha badan waa biniaadamku waad aragtay ilahay muxuu qur-aanku tilmaamaya uu leeyahay yani wahnan calaa wahn xanuunka uu maray hooyada ay marayso waad aragtay inuu dhasho inaad ugu dhalato inaanu dhasho marka wax wal oo qiimo badan nolosha waxa la xidhiidha xanuun muruqa maanta haddaad doonaysa inaad labaha aad dhisato waa in haddee birbirs ka xog badanta aad qaato everything nolosha tanna soo jeed bay u baahan tahay dadaal bay u baahan tahay inaad isdhiibin bay u baahan tahay waxay oran jireen carabtu lowla almashaqa
ساد الناس كلهم هذه باشو أي سكف الضان لهيد قفل بخون قلا سيت لا أمر ما شرطه ولا أمانه البدع عندك مو هناك سنتين مركب باشا الحب أنت جهدي يقوس الآن بأوبا أنت أدين نفدينا نرش واحد قروح لأنك أصمية وتشالنجك without challenge نرش معنا بدل ما سمينا